صراط الذين أنعمت عليهم إلهي كوي أدن معي سيجد كودي كوي ألون معي جد كلي مدوا قرآن كالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه جد كلي وقرآن كان إلهي مركز ورتا أجنيدنا واحد ويدي سنة سين جد كي النبي محمد لي ميان بيدك له لغو مريو إلهي انت تسرت اكتبا واحد ويدي ستي إله هاي مرنن كوي جد كودي غير المغضوب عليهم ولا الضالين كوا دو عراطي يكوي اللمي يهود نصارى إيه وحي على كوشيتان معقول ميتي إنه ننك مدحدا أما وزيرك أما مدحوينا أما إمامك أما وضيك أما السلطانك أما عاقلك انتو الشمس لا ذاتو كدو هذا نو كوير هذا قرآن كقاضا منه ما معقول شنتن وتكري وحكو هاد لي بينن وشيغين ويان شن غور مركو الهي ورتاغنا وحي ku hadlay baanu garanin way shantan jeeraad ilaahay hortaagnayd ba ilaahay waxa lahayd ilaahay uu nimanka yahuudeed iyo nasaare jidkooda ay marinin imikana waa laga kari ilaahay marka dabada u soo baxday macquul ma waxa lahayd ilaahay uu jidkii nabiyada hayga reebin imika marka dabada u soo baxdayna waa lagu kari ilaahay idan waxay leenahay salaadu haddii dadku ay fahmaan oo si fiican loo fahmo waxay leenahay islaamnimada inuu dadka la raadinayna waa salaadatan islaamnimada dhabta inuu dadka la raadinayna waa inay salaadan fahmaan waa in salaadan la garto waa salaadatan baynu leenahay wixii gaal iyo muslim lagu kala gartay waa salaadatan wixii munaafiq iyo mu'min lagu kala gartay waa salaadatan wixii lagu kala korreysiyay mu'miniinta laftooda ay manaasisha ku kala yeesheen oo kala sareeyeen waa salaada baynu leenahay waxa huwiyadaada sheegaya dadnimadaada iyo cidda aad ka tirsantiyo meeshaad abtirsiintaadu gasho waa salaada waxa sheegaysa waa salaada ta sheegaysa baan leenahay inaad adoon tahay ilaahayna uu rabbi ku yihi inaad adigu adoon tahay ilaahayna uu rabbi ku yihi waa salaada ta sheegaysa baan leenahay inaad rumaysan tahay cid kale oo la gargaarsada inaan jirin isaga mooyaane iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'iin kaligii inaad kaalmo ka dalbayso isagoo qura inaad gargaarsanayso sida daraadeed baa ilaahay wuxuu inagu yidhi subxaana wa tacaala wastaciinuu biالصabri waالصalaa wainaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin gargaarsada baa la yidhi sabr iyo salaad salaadu waa shaygii keensanayey inaad rabbi toos ugu xidhnaato inaanad cidnaba kale marin ilaahay subxaana wa tacaala inaad toos ugu xidhnaato walidalik baa waxaan leenahay salaada haddaynu si fiican u garanno ومعالم التربية كوا وين بين ما أنتنا وحلا غيابة الدين ندين هذا الدرس الصلاة كصاب سنة لا هذا الصلاة وسكوا نقانا نعيدوها نقلتاجين إن وحوين لمودين مركز صلاة لقى ورميه إن دتكو صلاة دتك ويري إذا وحى مقاني ويهاي بين لنا صلاة دنو يفهم كذي تكشدي دي حاجة جنتين هدي تنمل وهوبيه وحنسلي السلام لماذا أنت وقبضنا المال بالوهوبيه haddii iyada si fiican loo garto oo ay si fiican inooga dhaadhacdo walidalik salaadu inay wax walba tilmaamayso waxa kuu sheegaya nabi shucayb gaaladii ka hortimi maxay ku yidhaahdeen qaaluu ya shucaybu asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaa'una aw an nafcala fi amwaalina maa nashaa innaka la anta alxaliimu arashiid waxay yidhaahdeen nabi shucaybow ma salaadaada ayaa ku faraysa bay yidhaahdeen inaanu ka tagno wixii aabbayaashaya caabudayeen dahayo salaadaa dadka faraysa iyaaka nacbud baaba la leeyahy salaadaa faraysa in alloo qura laga dambeeyo salaadaa faraysa inaan dhaqaalaha sidii la doono loogu takrifalin masale iqtisaadiya ka warramayaan markaasay leeyihin ma salaadaa ku faraysa nacam salaadaa faraysa in ilaahay looga dambeeyo wuxuu yidhaahdo waa xalaala la xalaalaysto wuxuu yidhahdo waa xaaraana la xaaraantinimeeyo sida ogeed waxaynu tilmaamaynaa hadday salaadu noqoto taasi qalbiga ka timi taasi qofka muslimka ayuu ilaahay hortaagan yahay taasi qofku aanu dareen kale qabaynin xataa bacdi salaf la tilmaamo war qaar baa dhakhaatiirtooda waxay yidhaahdeen
bunjaan ku siinayna baa lagu yidhi zayn alcaabidiin baan rajaynaya inuu yidhi bunjigu waa bahashan lagu sakhraamo bahashan morfiinta tan dhirta laga soo guro boocmadooda soomaalidu ay tidhaahdo geedkan yaree midhihiisa markay dhiidhiijiyaan ka mida mukhadaraadka la cabo mukhadaraadkaasi waxaa kaloo loo isticmaalaa in dadka lagu suuxiyo marka la qalayo dabeetana nabar baa la yidhi baa aadinka kaga yaalay nin dhakhtara baa wuxuu yidhi waxaad u baahan tahay qalitaan baan rabnaa inaan kuu samayno si qalitaanka loogu sameeyo baa la yidhi bunjaa lagu siinaya oo bunjigu caqliga ma dooriyaa buu ku yidhi markaasaa la yidhi haa markaasuu yidhi cabbi maaya iga daayo salaad baan gelaya markaan ilaahay is hortaago fafcal maa badaa lak wixii adiga kuu muuqda markaa yeel salaad buu galay markaasaa la qalay dabeetana adin laga qalay waxaa laga yaabaa inaad hariibsato insaanka maskaxdiisu waxay soo daysaa ama jidhkiisu wuxuu soo daayaa hormoonno tiro badan oo marar badan xanuunno badan ilowsiin kara laakiin xadiidkii dee abi daawuudkaba ku yaallay ku noqee saxiixa xadiidkii labadii saxaabiye ilaalinayey waxay ilaalinayeen ciidankii muslimiinta ciidan muslimiina oo ka soo noqday gaalo meel la ysku galay soo noqday ayaa nin gaali soo dabagalay oo ku ballan qaaday inaanu noqonin inuu muslimiinta waxyeelo mooyaane dabeetana laba saxaabi baa la yidhi gaadhka qabta labadii saxaabi oo gaadhkii haya oo saxaabadii kale iska seexdeen ayaa labadii nin mid yidhi war waa yaro jiibsanayaaye kici dabeetana labadii nin ee gaadhkaabaa mid yaro jiibsaday kii kalena salaad buu iska galay salaadda isagoo ku jiruu kii arkay inuu kaasi salaad ku jiro dabeetana gamuun buu ku dhuftay xabadii koowaad baa mudday uma dhaqaajinay salaaddiisii buu iska waday kii labaad buu ku dhuftay uma dhaqaajinay salaaddiisii buu iska waday kii saddexaad buu ku dhuftay saddex gamuun markay ku dhacday ayaa xilligii rukuucda la soo gaadho wuu rukuucay dhiiggii isaga ka qulqulay ayaa camaar ibnu yaasir kani waa cabaad ibnu bashir camaar ibnu yaasir oo jiife toosiyey dabeetana ninkiina markuu foorarsaday kii jiifayna uu sasanqadhay buu ninkii gaaleed iska cararay camaar baa markuu indhaa kala qaaday wuxuu arkay saxaabigiioo dee dhiig ka da'ayo waar maxaad ii kicin weyday buu yidhi inta waxaanoo dhami kugu dhacayeen wuxuu yidhi waxaan nacbaystay inaan qur-aan baan akhrinayo kala gooyo salaad buu ku jiray imaam ilbayhaqi wuxuu soo naqlinaya inay ka hafahayd suuraddu akhrinayo waxaan nacbaystay buu leeyahan yacni salaaddu mansiladaasay ka ahayd ay nolosha ka jecel yihiin nolosha dhammaanteedba uu ka jecel yahay saacadduu ilaahay hortaagayay subxaanahu wa tacaala saa daraaddeed bay noloshiisa raad ku lahayd sidaa awgeed baa salaaddu marka ay noqoto tu mansiladii loo baahnaa gaadhay ilaahay qur-aanka muxuu ku leeyahay ina asalaata tanha cani alfaxshaa'i waalmunkar salaaddu baa la yidhi waxay reebtaa alfaxshaa waalmunkar xumahay dadka ka reebtaa waa markay mansiladan yeelato waa markay dhadhankan yeelato waa markuu qofku garto inuu rabu samaawaati waalardi hortaagayay waa markuu qofku garto inuu ilaahay maalin kasta la xidhiidhayo waa markuu qofku garto inuu ilaahay yahay cidduu hortaagayo uu baryayo cidda uu ku leeyahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa markuu qofku garto inuu isdhiibay oo wuxuu ilaashado dambe aanay u hadhin ee salaada ay tahay waxa uu ilaalinaya salaada